sanad guuradii 62 ee dhowr maalmood kadib fooda nagu soo haysa 12 Abriil dabaaldegeedii ayaa la siyaasadeynaya wala diidaya qaar baa waxay leeyahay hal la joojiyo oo yaa si awooda taliska xoogga dalka Soomaaliyeed waxa la aasaasay 12 Abriil 1960 taariikhda ku qoran tahay waxa lagu aasaasay 4 horin oo min boqol ah waagaas la aasaasayba waa jireen siyaasiyiin iyo shakhsiyaad diidayo dhahayaan la aasaas magacyadooda sheegay ma laakiin waa naqaana waa la diidayo waligeed nin da'yar Allah u naxariistay General Daawud Cabdulla Xirsi ayaa loo dhiibay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu gaaray waad ogtihiin libaaxyada Afrika in la yiraahdo taariikhdaas iyo sharafka iyo karaamada xoogga dalka Soomaaliyeed yaan la xusin yaan la xasuusanin anigu waxaan u arkaa qaran diidnimo xoogga dalka Soomaaliyeed waa kuwa ilaaliya dastuurka iyo xuduudaha cirka iyo dhulka iyo badda waxa la arkaa hadda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo dib u soo noqday oo dhismaya oo qalabaysan oo tababaran oo ay hogaaminayaan dhalinyaro wax u soo bartay difaaca qarannimada iyo midnimada dalka Soomaaliyeed marka ugu horeysa fursadan ayaan ka faa'iideysanayaa inaan hambaliyo u diro taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed taliyaasha ciidamada dhulka badda iyo cirka qaybaha hogaanada guutooyinka gaasaska saraakiil xigeenada saraakiisha iyo saraakiil xigeenada iyo dableyda iyo qoysaskooda munaasabadaas awgeed hambaliyo ayaan u dirayaa ilaahay sanadkan sanadkiisa kuwii nabad iyo bashbashay barwaaqo ku gaar Allah naga dhigo ciidanku wuxuu u dhismayaa war ilaahay aad ku dhaarshay mayaan la xasuusnayn in golaha ammaanku mar dhow ansixiyeen in ciidamada Soomaaliyeed ay amniga dalka la wareegayaan 2024 maxay u go'aamiyeen haddaanay arkaynin inaan ciidamadeenu awood u lahayn dalka inay la wareegaan amnigiisa golaha ammaanka qaramada midoobay go'aankaas ma gaarin waxay arkeen ciidanka oo dhismaya waxay arkeen xoogga dalka oo awoodii uu lahaan jiray soo ceshaday waxay arkeen tayada ay leeyihiin markaasay aamineen inay la wareegi karaan amniga qaranka sanadka 2024 dad ka masayrsan oo ay la xun tahay sharafta Soomaaliyeed ayaa waxay la soo taagan yihiin 12 Abriil ee farmaajo raba inuu ka dhigo 22 Oktoobar war waxaas maxay yihiin ciyaar suuqnimada 12 Abriil yaan lagu khaldamay waxa la xusayaa aasaaska xoogga dalka Soomaaliyeed waxa la xusayaa sharafka iyo karaamada ay leeyihiin waxaan xasuusanaynaa taliyihii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dhisay General Daawud Cabdulla Xirsi waxa diidan marka 12 Abriil in la xuso soo lama dhihi karo General Daawud Cabdulla Xirsi diidan yihiin iyo wax qabadkiisii iyo awoodii ciidanka uu ku dhisay soo lama dhihi karo maanta General Odawa Yuusuf Raagay diidan yihiin oo dhalin yar oo soo dhameeyay tabihii iyo waxbarashadii dagaal iyo ciidan ee adduunka ka soo qaatay shahaadooyinka ugu sareeyay ee aragteen waxa uu qabanayo arintaas in laga fiirsadaan rabaa Soomaaliyeed kuwa raba inay siyaasad ka dhigtaanna waxaan rabnaa iimaanka Allah galiyo in laga celiyo waxay ka qaadi karaan ma jiraan ma jooji karaan xoogga dalka Soomaaliyeed ilaaha sharfay ummadiisa rabta shacbigiisa raba madaxweyne farmaajo waa uga mahad celinaya inuu heerka gaarsiiyay asagaba waxa lagu haystaa maxuu heerka u gaarsiiyay ciidanka
madaxdii ka horeysay ee labadii dawlo iyadoo daymankay ciidamada qalabka sida iyo shaqaalaha dawladda lagu leeyahay meesha ka tagayaan muwaadinkii wax u qabanaya ummadda marka in la jilaafo lugta la jiido Soomaaliya dhaqan aad u xun waaye inaan iska dayno ama la iska daayaan ku soo jeedinaya Markuu daraaray yahay